بسم الله الرحمن الرحيم عشر كلمة كسوق وجبينا برشيدني إنسرتي كمدا باوربوينتيga hyperlink waxaan dib dhiganayaa mashruuca lagu sameeyo su'aalaha multiple choice-ka true and false-ka waxaan kamaad soo aragtay text box header and footer waa markaad rabto inaad u sameyso mid sare qoraal hoose oo warqada xagga hoose asaad diyaariyo kale مثلا oo kale imka hadda kan oo kale inoogu jira number page kan soo karaa markaasaan leeyahay apply hadda waxaad aragtaa waa ka number 1 iyo diyaariye iyo magac header-kan waad ka sameyn karaysaa waxa kale ku jira meesha aad farta qoraal ku sameyn lahayd hadda markaas aad qoraysaa waxaad leedahay dugsiga hoose dhexe inta marka taado dadto umbaad jawaab baaqi noo dhigaysa Sheekh Ali Ibrahim soo yaray bal farta home baad tagaysaa marka 250 weeyaan oo 40 ka dhigtaa amba ka yareysaa 18 inta ba ka dhig okay dabada imika halkaas ka laba jeer click waxaan tagnay inta farood baa ku yaala marka awal halka inta waad soo wada aragto waan kugu soo sharaxa ka hore laakiin halkan word artiga umbad hal mar click siinaysaa warqada unba ku imanaysaa markaas aad qoraalka qoranaysaa okay kaan inta nigada meesha kale muhiimka waxa weeyaan inaad taqaano date and time loo keeno waad aragtay hal mar baad laakiin keeni kartaa adigoo isticmaalaya si gooniya oo aan ka ahayn header and footer-ka waa ka imka date oo kaliya taa mar keenaysa laakiin halka laftigiisa macluumaad kaga sameyn karaysaa slide iyo footer-ka wixii mar walba halkan waa slide number-ka isna kaliya halkan ka sameyn karaysaa soo kaliya joogaad sameeyay markaas la apply number markaas uu sheegaya number ku yahay okay intaana la object-gana waynu soo aragnay buuggeena hore ku soo aragnay object ma baahna sida video loo keeno halkan ayaa muhiim ah hal mar baad click siinaysaa video from file baad leedahay markaas aad buugaagteena aad ka soo qaadanaysaa buuggeena hor dhaco kale midalan ayaan hal mar ka soo qaadanaa al 10 barteen keenna kaasina keenna hor dhaca 10 click baad siinaysaa bartan iman waa automatically buu leeyahay laba jeer click siin بسم الله الرحمن الرحيم soo dhaw 10 keenii koobaad aynu waxaanu kan keenay insert aynu tagnay markaasaynu tagnay video markaas warqadana ku soo baxay video from file kadib meeshuu ku yaala aad keenaysaa markaa mid ka doorato baad click siinaysaa goobta ku yaalo baad ka soo dooranaysaa marka la ku yimaado baad click siinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم soo dhaw macallinkii waa noo sharxaya casharkeen anoo sharxaya buuggii halkan ku yaala waad weynaysan kartaa barnaamijkaaga waxaan ku weyneyn karaa sidii warqadii baan u weyneyn karaa kadib markaan saa u weyneeyo ayaad keensan iyo laba jeer click siinaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhaw casharkeenii koobaad aynu markaas halkan waxaad leedahay preview baad leedahay preview bismillaahir rahmaanir rahiim waad naga joojin kartaa inaad laba jeer click siiso waxa isku mid ah iyo inaad hal mar preview taabo oo macnaheedu ah play oo ka ku hoos qoray play full screen baad oran kartaa ka kooda shaqeysii markaas aad oranaysaa full screen baad oranaysaa qasanaysaa play bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhaw casharkeenii naga jooji waxaad oran kartaa intaas ku soo dhigan halkan nawaalka ka diyaarineysay kala durkin karaysay oo adiga dib u celinaya darkaso automatically isku shaqeynaya ma baahnid okay koonada soo qaadan kartaa awriyada ku timid awri sound marka cod keenayso amba audio halkan aad click siinaysaa halku yaala tan ka soo qaadanaysa midalan halkan oo soo qaad browser software-na waxaad noo gashaa sheekha noogal suuradda kula barnaamijka furana wuxuu ku leeyahay how do you want the zone to start on the slideshow markaas automatically miya mise markan one click siiyo ayaad rabtaa inuu bilaabo qaabkeed rabtaa ku leeyahay marka automatic baan leeyahay markaas aan hal mar click siinaya babli baan leeyahay okay marka intaas samayso waxaad fahantay qaabka loo keeno video iyo qaabka loo keeno sound oo codka adaa mid iska duubi kara record sound buu leeyahay record sound adiga iska duubi kara waa kan record sound magac baad bixinaysaa markaas aad leedahay waxaad leedahay Axmed markaas aad leedahay halkan maxay record bismillaahir rahmaanir rahiim waa tijaabada qaabka loo duubo codka markaas aad naga joojinaya hadda okay baan siinay marka okay siiyo
bismillahi raxmaan raxiim waan iga keenay waa tijaabada qaabka loo duubo codka waxaad aragtay anigoo intan halkan samaystay inuu cod kala keenaba ka maarmo isticmaalay record sound play cd audio track ayaad samayn kartaa laakiin intaan kuu joojiyo halkaa waxaynu ku dhammaynay insert